Oprah Winfrey haweeneydii ugu horeysay Afrikaan Mareykan u dhalatay ee ka noqotay wariye telefishin waxay ka dhalatay qoys sabool ah oo ku noolaa deegaanka Mississippi ee dalka Mareykanka taasina kamaysan joojin inay ku guuleysato hamigeeda waxbarasho waxay ka heshay deeq waxbarasho oo jaamacadda Tennessee State University waxay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee Afrikaan madow ah ee wariye ka noqotay telefishin iyadoo da'deedu xilligaasi ay ahayd 19 sano jir. Oprah oo xaalkeeda hore ah mid aad u xun waxay waqtigan haysataa hanti dhan $3 bilyan oo doolarka Mareykanka ah sida lagu qoray wargeyska Forbes. haweeneydan oo ka mid ah haweenka dunida ugu lacagta badan ee madowga ah waxay sanadkii 1983 u guurtay magaalada Chicago ee dalka Mareykanka iyadoo bilowday barnaamij la yiraahdo xilligaasi AM oo bandhig la qabta ah kaasoo aakhirkii loo bixiyay magaceeda The Oprah Winfrey Show. ha isdhiibin weligaa guusha way imaan doontaa. لا تخف من الفشل عليك فقط الاستمرار بالمحاولة. ha ka cabsanin guuldaradii kaliya sii wad isku daygaaga.